بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركله iyo barnaamijkeena aan ka hadli jirnay dadka caanka ka ah dunida ama Soomaalida dhexdeeda hadaba daawayaal waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena shanta qof ee ugu horeeya uguna lacagta badan Soomaaliland shirkad ka soo baxda dalka Faransiiska gaar ahaan caasimadda Paris ayaa sida ay qortay taasoo ku falanqaysay dadka ugu dhaqaalaha badan bariga Afrika taasoo aynu ka soo xigin karno shanta qof ee ku jira uguna sareeya dhaqaale ahaan ama si kale hadaan u dhigno aan oran karno waa kuwa ugu lacagta badan Soomaaliland hadaba dadkan ayaa qaarkood waxay ganacsi ku leeyihiin wadamo aan ahayn Soomaaliland oo ganacsigoodu ka shaqeeya kaalinta koobaad waxa galay Ibrahim Cabdi Kaahin oo ku magac dheer Ibrahim Dheere ahna ganacsade reer Djibouti kana soo jeeda Jamhuuriyadda Soomaaliland ganacsigiisuna u gaadhay dhammaan bariga Afrika lacagta uu haysto ganacsadahan ayaa waxa lagu tilmaamay inay tahay 1.6 milyan dollar kaalinta labaad waxa ku jira Maxamed Siciid Ducaali oo loo yaqaan Dahabshiil iskana leh Dahabshiil Group lacagta uu haystana waxa lagu sheegay inay tahay 700 milyan oo dollarka Mareykanka kaalinta saddexaad waxa ku jira Cumar Caydiid oo loo yaqaan Golden Boy waxaanu haystaa hanti lacageed oo dhan 560 milyan kaalinta afraad waxa ku jira oo ka soo dhex muuqatay gaar ahaan marka la tilmaamayo dumarka gabadh u dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliland ganacsigooduna u gaadhay meelo fara badan taasoo degan dalka Uganda oo magaceedu yahay Aamina Mooga Xirsi haddaba sida ay sheegayso jariiradu gabadhan ayaa lagu sheegay hantida ay haysato hanti dhan 445 milyan oo dollarka Mareykanka gabadhan oo aad caan uga ah dalka Uganda halkaasoo ganacsigeedu ka bilaabmay kaasoo ku faafay bariga Afrika kaalinta shanaad waxa ku jira ganacsade reer Soomaaliland ah oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Ismaaciil Tarabi kuna magac dheer Inaafdiinle kaasoo ka ganacsada qaadka hantida uu haysta hadaba ganacsadahani ayaa waxa lagu sheegay inay tahay 405 milyan oo dollarka Mareykanka hadaba daawadayaal caawa waxaan ku baranay ganacsato caan ah oo u dhashay dalka Soomaaliland in badan ayaan ka sheekeynay dad ajaanib ah